مضي خير لي قوة الدكتيو إيبكو أبوري مضي خير لي قوة الدكتيو إيبكو أبوري أبتي إيو أييو أدير إدو إيو آيو أهل إيو حقال باتي قوضنا وذيالي الله سيوض أنا ودبل قرق مسوجيدو I have said this so many times in the last 40 years أنا مال قرق مسوجيدو أنا نسمرهنا وانا هني نساقنا وانا أنا هو يدي مدفره أنا أنا هيفوقيني مال أنا أقولين إن جوبه هيجيني نادو كان من يريد وأكو لأنه سايس لفهمنا waxaynu ka baxaynaa dhibaatada us against them ayaynu ka baxaynaa waxaynu xitaa soo galaynaa su'aalihii soo joogay ahaa the role of women in the community aniga hooyada iyo aabahay they are equal footing they are equal footing in fact aniga aabahay anigoo yar budhin I was second year in high school when my father died in Gibik waxa tacabkee intii kala keenay hooyadii yaa keenay والله لين كايس كيلا هذيك الواحد بينه هذه ماي وكو طلبات إندونيا نقوسها وحوي أنا بدي مي هي رسول كيلا هاي يسود الجيش سمرون مي سو هذا جرم سمرون ده يقع قوم بدل بيجر ده يقوى يرسم بيجر ويجي أنا السياسة ضوطنا يجد هو بيجر صلاة الدين بيجر هو بدني هو بلاري هو يكون سو هذا جرم أنا بميزان كان كله يعني يا ذكر يقوم بأوك يا أوكي دينا إذا عدا كهل يجرون ما جيس الله يقانو غير كنا سلطان كي يهين وحن كاس yes those are good things yes لكن ده بالعادن وي ولا جداني كأي ما يحاول راعي ما ما يدينه وما يوران هذه قال كان نوجه جوا كمان نقول بعدين مكلف أنتي سوى سكير حافظ حسب عيد أو يطلبوه قرمج مقدسة لكن لما ويدين تفكير سمرون قال لما ورنا you going to elect this guy so هذا ما marka influence I think it exaggerated but I accept one thing I accept daaban jooga waxoogaa yaroo magacaawo idaacaduhu ay aada usii balbalaadhiyeen maybe sometimes with an exaggeration way jirta sumaga anigu intaa aan ka hadlayay recordkuna wuu qoran yahay waxaan qoray way qoran tahay waxaan ku hadlay way duuban tahay weligii iyo allahay kuma oran dadka samaroonta ah Somaliland waxba ku darsanina I have never said that and if you can find that and if you can't find that record banaanka ah la soo dhigo so hadda garmis anu Somaliland waxaan ka hadli jiray waxay ahayd had iyo jeer dadka reer Somaliland waa in la isku hayaa waa ka Faysal uu jooga dood baan wada galnay aniga iyo Faysal I think Faysal it was either the BBC or Voice of America xamar baan joogay candidate baan doodda aan wada galnay isagii dad kale aan inagu jiray Puntland baa nin kale inagu jiray waa doodda aan guli jiray argumentkaygu waxay ahayd ya Somaliland anagu ma ogoli Somaliland in la kala daadiyo Somaliland is one unit I said that ama muqdisho joogo ya dadkii kale doodda nagula jiraan Faysal ahayn baa soo hadlay oo markii dambe yiri oo de waa dir baad noqotay nin diron baad noqotay soo hadda garanaysa weligay Allah idna horo gumaan gubaadin yes Somaliland waan ka hadlay and I was very proud of my attempt to see if I can help save my country and my people we suuragal kale wey that's part of the failure my own failure their own failure yes لكن weligay Allah Somaliland hala kala daadiyo ha kala baxba yeah there is an